بسم الله. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسيغاني ودرسيغي أفراد وكمد الدروستي أن وهل ليني أحكامتا كسابسان بشهر رمضان. درسيغي كهري وحن أقصوا هذا الني عقوبة أوليه هي قفك عذر لآن وقتك بشهر رمضان وأنسومين. درسيغنا maantana wuxuu ku saabsan yahay xikmadda ku jirta soonka ramadaanka. ahlul cilmigu waxay yiraahdeen soomku waa laba nooc: sawmun asghar, soom yar, wa sawmun akbar, iyo soon weyn. soomka asgharka ama soomka yari waxa weeye waa cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaabaha wax afuriya oo laga tago laga bilaabo marka waagu soo bariyo ilaa qorraxdu ka dhacdo. soonkaasi waa soonka yar weey. laakiin soonka weyn oo cadiimka ah ama akbarka ah waxa weeye qofku inuu ka soomo waxa la wixii Ilaahay uu ka xarimay, hadal ha noqdo, ficil ha noqdo, akhlaaq ha noqdo, waxaas ha ahaadeen inuu ka soomo har iyo habeenba uu ka soomo, bal umrigiisa oo dhan uu ka soomo ilaa uu ka dhimanayo. qalbigiisa baa soomaya oo xumaantii oo dhan ka soomaya, jawaarixdiisii iyo xubnihiisii baa waxay ka soomayaan wax kasto Ilaahay ka xarimay. waxaas ha noqdeen aqwaal wax lagu hadla, ha noqdeen wax xubnaha laga sameeyo, ha noqdeen akhlaaq, ha noqdeen waxaas ayuu ka soomaya qofku. qofkaasi marka afurkiisu meesha uu ku afuray waxay noqonaysaa xawdkii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo wabigii kawthar iyo jannatu naciim ayaa afurkiisu ahaaday. soomkaasi marka waa soomka weyn oo qof kastoo muslima laga rabo in uu laazimo oo uu ku dhaqmo oo uu xumaan iyo xaaraam iyo wax alla wixii Ilaahay ka reebay uu ka haro waqtigiisa dhammaantiis. kuma xirna maalin iyo habeen, kuma xirna har iyo habeen, kuma xirna zaman, kuma xirna ilaa uu qofku ka dhimanayo. soomkaas waa laga rabaa. ama soomka yar waa soomka aan naqaan oo ah wax alla wixii qofka afurinaya inuu ka dheeraado laga bilaabo salaadu markii ay oogu markuu soo dhasho ama fajarku soo dhasho ilaa qorraxdu ay ka dhacdo. soomku marka sida aan soo sheegnay waa rukni ama tiir kamida tiirarka islaamka oo shanta kamida. wuxuu uga duwan yahay cibaadadka kale. waxaa ku sugan mashaqo iyo dhibaato oo xagga gaajo iyo oon ayaa ku sugan, siba maalmaha aad iyo aad u dheer ama u kululba. marka xikmado badan ayaa soomka ku sugan oo Ilaahay noogu farad yeelay, noogana baahan yahay inaan xaqiijino xikmadaha soomka ku sugan. xikmadda u horeysa waxa weeye awalan horta inaan ogaano Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu xakiim yahay. magacyadiisana waxaa ka mid ah al-xakiim. xakiimna macnihiisu waxa uu yahay waa axadka shay walba meesha u munaasab ka dhiga weeye. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka ma jideeyo xukum ka mid ah axkaamta sharciga ilaa xikmad inay ku jirto ama maslaxad iyo faa'iido naga noo soo noqonaysa. sida darteed qof kastoo mu'min waxa laga rabaa haddii Ilaahay wax ku waajibiyo oo Ilaahay amar soo bixiyo ama nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amar bixiyo in aan fartoono oo aanan oran limaada, maxaa sidaa naloo amar inaanan oran. Ilaahay quraanka wuxuu ku yiri وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما هبونا مؤمن أما مؤمنات هدي إلهي أمر حكميه أما الرسول كيسو أمر حكميه إن اختيار يشان اختيار مليه الضمان نهي سيدان لو أمر أيان أفرتومينا مركان فرتونه مركان كدي واحد باتا أمله إن أنبارنا بالحكمة دا كجرتا وحانا الأمري أن فهمنا أما يانا فهم. مركا صومك حكمة بدن أو وين أو قارنا لو شيء قارنا أن فهمي كرنا أيا كجرا. وحكو سوغان حكمة لها صومك كسوغان وحاكم ده اختبار أما امتحان وإلهي امتحانه يؤدو مديس. يا فرتوما هيا أمرك إلهي يا فرتوما هيا أو كل رقم هيا oo u sabrahaya
gaajada iyo oonka iyo mashaqada ku jirta iyo qofka aan fartoomayn oo asagu ilaahay ku caasinaya say u kala cadaadaan ayaa xikmadihiisa soomka ka mid ah xikmadaha soomka waxaa ka mid ah attaqwa alla ka cabsi baa ku sugan lianna muraadka laga leeyahay soomku waxa weeye in ilaahay loogu dhowaado in laga fogaado waxyaabaha naftu jeceshahay oo qofku u baahan yahay oo nala ka reebay inaan ka fogaano annagoo ilaahay ku weynaynayna wixii naftu ay jeclayd oo cunto ah ama cabitaan ah inaan ka fogaano annagoo ilaahay ku weynaynayna oo ilaahay amarkiisa ku qaadanayna taqwaduna waaba sidaasba ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun dadka ilaahay rumeeyeyo waxaa laydinku waajibiyey dushiinna waxaa lagu waajibiyey oo lagu farad yeelay soon sidii dadkii idinka horreeyoo kale loogu farad yeelay xikmaddu maxay tahay lacallakum tattaquun waa inaad ilaahay ka cabsataan marka soomku waa taaco ilaahay la adeecayo oo qofkiina thawaab lagu siinayo marka sidaa darteed ayaa qofka saa'imka ah oo sooman wuxuu ka dheeraadaa waxyaabaha ilaahay ka xarimay afcaashiisa aqwaashiisa wuu ka dheeraanaya lanna soomka ayaa wuxuu yahay junna wiqaaya waa gaashaan ayuu qofkii uu uga dhowrsanayo waxa la wixii ilaahay ka xarimay oo uga dhowrsanayo naartii markaas wuxuu xifdinayaa jawaarixdiisa xubnihiisa ayuu xifdinayaa wax ma caayo wax ma ceebeeyo ma qayla dhaamiyo لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إذا أصبح أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل هدي أحد كين وابريست أصغى صوما يوسن كهل هذا الحن حد قدبنا يوسن سمين وفعل حن يوسن لا إيمان هدي قف عايو أما أولاد قال موقف هي رادو ورانو واسومنا هي ورانو واسومنا سوى تسينا هي إن uusan la caytamayn ama uusan la dagaalamayn taasuna aysan keenin cabsi uu ka cabsanaye ay tahay asagoo ilaalinaya cibaadadaas weyn oo ku jira oo soomka ah nabigu kaleey salaatu wasalaam sidoo kale wuxuu yiri man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi haajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu qofkii aan ka tagin hadalka xun iyo ku dhaqankiisa qofka aan ka tagin qofkaas ilaahay waxdana kama leh in uu cuntadiisa iyo cabitaankiisa uu ka tago ka soomo ilaahay waxdana kama leh marka qofka aan ilaahay ka cabsan markuu sooman yahay oo aan xubnihiisa xifdin oo been sheega oo dadka caaya oo dadka xamanaya ama ku hadlaya hadalka xun ku hadlaya dadka ku xadgudbaya carabkiisa dadka kula xadgudbaya ama gacantiisa ama afcaashiisa dadka ku xadgudbaya ama dayacay xuquuqdii iyo waajibaadkii lagu lahaa sida salaadii oo kale iyo qeyrkeedu xuquuqda ku waajibtay ah qofkaasi wuxuu dayacay xikmadii soomka laga lahaa waxaana ku rumoomay qowlkii nabiga kaleey salaatu wasalaam aha ilaahay waxdana kama leh in uu cuntadiisa iyo cabitaankiisa uu ka tago xikmadaha soomka waxaa ka mid ah nafta in la baro lagu tababaro in ay dhibaatada u adkaysato sababtoo ah tarafka iyo nicmadu ma daa'imaan maanta haddaad nicmad iyo taraf ku nooshahay berri waxaa laga yaabaa inaysan joogin marka qofku soomku wuxuu barahayaa in uu ku sabro oo uu awood u yeesho in uu gaajadii iyo oonkii iyo mashaqadii uu ku sabro maalintay dhacaan soomkii marka wuxuu ka kasbanayaa qofkii dulqaad iyo sabr ayuu ka kasbanayaa xikmadaha soomka waxaa ka mid ah in la jabiyo nafta kibirkeeda sababtoo ah naftu haddii nicmadu u dhammaystiranto oo cunto uu haysto oo cabitaan uu haysto oo shahwadiisii u haysto taas waxay ku xambaaraysaa qooq iyo kibir bay ku xambaartaa markaasuu qofkii wuxuu noqonayaa xayawaanka oo kale bahiimada oo kale ayuu noqonayaa oo aan wax kaloo hamiya aan lahayn ilaa calooshiisa iyo farjigiisa maahane marka soomka waxaa ku sugan naftii oo la tarbiyeeyaa ku sugan xikmadaha soomka waxaa ka mid ah in lagu xasuusto nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii wuxuu u yasiray oo u sahlay cunto iyo cabitaan laakiin marka uu dhadhamiyo soonka uu ku dhadhamiyo gaajo iyo oon uu dhadhamiyo wuxuu dareemayaa
nicmadaas ilaahay siiye qiimihiisa ayuu dareemaya laanno shayga qiimihiisa waxa lagu gartaa marka shayga didkiisa aragtid nicmada ma dareemi karo ilaa qofka waayay maahane مثلا nafaska ama neeftas aan neefsanayno daqiiqad kasta aan neefsanayno qiimaha ay noogu fadhido ma dareemi karno waxa dareemi kara qofka waayay nafaskaas waayay sida مثلا hadda ka dhacdo kale cudurkan hadda dilaaga oo caalamkii hadda maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku salladay cudurkaas calaamadihiisa mararka qaarkood siyaabaha dadka u qabto waxa kamid ah inuu qofku neeftii waayo markuu qofku neefta waayo waxa weeye adduunka wax alla wax uu milkiyo wuxuu ku bedelan lahaa hadduu heli karo inuu helo neeftaas inuu helo haddii qofka la khiyaar geliyo maanta la yiraahdo qofka adduunka ugu jeceshahay lagaga soo qaado waxa laga yaabaa in oran lahaa la iga soo qaado si uu asagu neefta u helo annaguna 24 saac nicmadaasan ku jirnaa waa neefsanayna laakiin ma dareensanin qiimaha ay ku fadhido sidaas oo kale marka qofku cuntada iyo cabitaanka markuu haysto ma dareemayo nicmada laakiin markuu dareemo gaajada iyo oonka markuu dhadhamiyo marka ayuu dareemi karaa taas waxay ku xambaaraysaa inuu ilaahay ku shukriyo oo ku xamdiyo xikmadaha soomka waxa kamid ah in qofku dareemo xaajada ama dhibaatada dadka fuqarada iyo masaakiinta oo wax ku sadaqaysto markaas ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبي نوح أها أجود الناس ذاتك كانوا ودي يغسسن بوها لكن ديقسي نمدي سوحي سي بدن جرتي بشهر رمضان أي سي بدن جرتي مركا قفكو مركو دريامو قاشدي أونكي مركو دريامو وحي كو حنباريسا إنو يجران ضد مساكينة أو فقراء أو مركز تبا أيو أون كان إيا قاشدان إي هايستان تاسنا وحي كو حنباريسا مركا إنو وحكو صدقيستو وحلقيا ضد بدن inay soomaan laakiin soonku uusan wax saameeyna ku lahayn xayaatadooda iyo noloshooda xikmadaha la soo sheegan aysan dareemin maxaa sabab u ah sababtu waxa weeye soomka ay soomayaan ayaa wuxuu yahay soomka daahirka kaliya cuntadii iyo cabitaanka ay ka soomeen ee ma aysan soomin soomkii xaqiiqiga ah munkaraadkii kama soomin muharramaadkii kama soomin yani xankii kama soomin namiimadii iyo isku dirdirkii kama soomin بنتي كما سومين خيانتي كما سومين واجباتكي ولا ضيعو كما سومين waxa laga yaabaa dadka qaar kood markuu saxuurto inta seexdo inuu soo kaco waqtiga afarka in la soo kiciyo laga yaabaa marka soomkaasi ma aha soomkii dadka ahlu taqwada ma ahane waa soomkii bahaa'imta waa soomul xayawaan weey soomkaas oo kale marka wax saameeyna iyo wax ta'thiir qofkii kuma leh xayaatadiisa ولذلك حديثك waxa ku sugnaa nabiga kaleey sallallahu inuu yiri rubba saa'imin ليس له من صيامه إلا الجوع وحابداً مد صوماً وأن صوم كيسي أوسن أكردين أما أن كهلين إلا قاتشم ويوحكالاته أجرنا كهلي مايو فإذا كهلي مايو حياة دي سنة مسامين هايو صومك وحا كسوغان فرصد أو وغسوغان داتك قاركود ولغو ابتليي عادات حنحن سيدا سيجار عبكة قاتك tubaakada dadka ku ibtilaysan waa fursad buu u yahay soomka Ramadaan oo 12 saacadood qofkii markii uu adkaysto oo uu ka istaago 30 bari waxay taasi ku xambaari kartaa wuxuu u baahan yahay wax yar oo go'aan inuu qaato oo uu iska gooyo sigaarkii iska gooyo qaadkii iska gooyo tubaakadii uu ka istaago isagoo Ilaahay dartiis fiirinaya Ilaahay dartiis soo uga tagay oo uga tagayn yani dadku ama ha laga sii sheego aan uga tagayn Ilaahay dartiis uga tagay ajar badan ayuuna ka helayaa taas naftiisana caafimaad iyo wanaag buu ka helayaa xoolihiisana waa u dhaqaaloobayaan marka fursad baa ku sugan dadka arimahaasi waxa weey lagu ibtileeyay ha ka faa'iideysteen Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwa soomka dhabta ah oo xaqiiqiga ah sooma ka sooma xumaan oo dhan ka sooma lagana aqbalo sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi